بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ترتن كان تاريخ فعوين بوليه نسبيا كونية سقال بقولي الله بيه سقاشن كيبا لقى صوب بلابي مقالة ده هرقيسة ترتن كاس oo imika 29 sanadood taariikhdiisu ay marayso sanado kooban ayaanu tartankaasi qabsoomin oo duruufo gaar ah ay hakiyeen taariikhda dheer ee 29 sanad gaaraysa 20 sano ka badan waxa dhiirinayay oo maal gelinayay شركة ودنيا الذهب شيل إلهي سبحانه وتعالى مالكو ذنها وبركيو كوي دينتا كالنتا أي كجيران سي كرديان الله كيالو
tartankaas waxaa ujeeddooyinka laga leeyahay ay tahay dee bishan ramadaan oo ah shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan oo ah bishii qur'aanka la soo dejiyey in aynu cibaadaadka bisha ramadaan lala imanayo aynu kaga qayb gallo oo bisha aynu ku weyneyno isla markaana aynu ku soo bandhigno dhallinyarada xifdiga qur'aanka ku howlan ee gobollada dalka joogta mustawaha iyo heerka ay ka joogaan in la soo bandhigo iyaguna ay isku bartaan taas runtii waa hadaf aad iyo aad muhiim u ah oo aan isleeyahay wax fara badan ayuu hadafkaasi ayuu xaqiijiyey tartankaas qur'aanka kariimka ee muddadaa dheer soo socday waa tartan ay ka qayb galaan dhallinyaro ka socota gobollada dalka ee ra'iisiga ama gobollada waaweyn gobollada qaarkoodna waa hooyooyin qaar kala dhalay qaarna waa ubad la dhalay gobollada qaari gobollada waaweyn oo sida gobolka awdal gobolka maroodi jeex gobolka saaxil togdheer sool iyo sanaag gobolladaasi waxa weeyaan gobollada sida joogtada ah tartankan uga qayb gala dhallinyarada waxyaabaha aada iyo aadaan ugu adkaynaya waxaa ka mid ah mar hadduu ilaahay deeqdan weynsiiyey oo kitaabkii ilaahay ay laabta ku hayaan inaanay fudaydsanin oo aanay xifdigiisa sii daynin aada waxyaabaha u adag waxaa ka mid ah qur-aanka hayntiisa haddii aanu qofku barnaamij samaysan inuu ku ilaalinayo wiiggiiba inuu mar dhammeeyo ama labadii wiigba mar wuu ka baxsan karaa taana nebigeenna wanaagsan sala allahu calayhi wasalam uga digay xufaadda xayثu qaal tacaahaduu hada alqur'aan fainahu ashaddu tafallutan min alibili fii cuquuliha qur-aanka ku dadaala buuhi waa amar amarkaasina waajib weeye qofku ilaahay xifdi siiye waa inuu ku dadaalaa waa ka baxsasho badan yahay awr dabarkii laga furay buu nebigu lehy calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo muhiima waalidku inay kula dadaalaan ku maalgeliyaan dhallinyaradaas sidaanu qur-aanku uga baxsan lahayn intuu qur-aanku sugmayo oon laga saarin madaariskii oon laga fogeynin mucalimiintii oon laga fogeynin subcii waxaan aada ugu adkaynayaa waa nasiib darro qof lagu soo tabcay muddo dheer sidanoo kale loogu xafladeeyey oo haddana qur-aankii uu ka fakaday markuu iskuul galay ama jaamacad amaba uu shaqo galayba waa deeq iyo hibe iyo hadiyad weyn ha fudaydsanina dhaqankiinana ha ka muuqdo intaa kadib sidaa horeba sheekhu uu sheegay waa waxa lagu farxo in kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala la qadariyo oo adduun lagu bixiyo innagoo aada ugu mahadnaqayna walaalihiina shirkadee maalgeliyey waxaanaynu leenahay ilaahay idin barakeeyo wixii aa ku bixiseen bedel khayr qabana allah idin siiyo horta marka hore annagu ka shirkad ahaan sidaa uu sheekhu sheegay dahabshiil group muddadaa dhowr iyo 20 sannadood aanu soo wadnay ama maalgelinaynay tartankan masaajidka calimataan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga jeednay in ilaahay subxaana wa tacaala dee loogu dhowaado in kitaabka ilaahay ma garanaysaa kor loo qaado iyo sidoo kale in dhallinyarada xufaadda ama xamaratul qur-aanka la dhiirigeliyo insha allahu tacaalaana intii ilaahay qadaro waa sii wadi doonaa dhammaan intii ay xuseen walaalahaygii igu horreeyey ee tartankani inuu sidaa u hirgalo qiimaha leh ilaahay sabab uga dhigay oo ay kow ka tahay shirkadda dahabshiil oo runtii guddidii culimmada ahaa ay dadaalka badan samaysay ee 30 sano in ku dhow ilaahay qur-aanka inay la noolaadaan marba jiil iyo ummadna inay soo saaraan oo ay barnaamijka ku dhiiriyaan iyaguna runtii ku dadaalay guddida kala saartay ee garsoorka ahaa ardayda soo dadaashay ee gobollada kala duwan ka timid intaanan sheegin
waxyaabaha ama qodobada kooban ee sanadkan runtii dhalinyarta halkan fadhida ee aad arkaysaan waqta boorka ku taala waa dhalinyartii gobolladeena waa ka soo wada qayb galeen shayga marka laga tago qur-aankan kariimka ah ee ay isugu yimaadeen ee barakadiisa leh caruurtaa yaryari way ka qiimo badan yihiin caruuraha dalxiis bay maanta u joogaan waxay soo dalxiiseen gobollo aanay arag ayay yimaadeen waan waraysto adiga ka waran kaasuu aniga imika igu horeysa mid wuxuu dhaha anigoo yar baa la ii keenay waa caruur yaryar marka laga tagay reer hargeysana insha allah iyaguna marar badan bay tegi doonaan gobollada kale caruurtaasi taariikhdooda way ku sawirmi doontaa safarkaa ay yimaadeen iyo jawigaa ay soo bedeleen runtii way ku sawirmi doontaa waxa kooda u dheer 50 arday in ka badan inay meel isugu yimaadaan oo ahlu qur'aan ah oo dhalinyaro ah waa qiimo gaar ah runtii farxad gaarana leh xagga dee marka darajada la eego iyo raggu ha wada dadaalaan laakiin sadee dhowr iyo 50 tartamay ma wada qaadan karaan 1 ama 2 ama 3 ma wada qaadan karaan mid alla u qoray baa qaadanaya laakiinse waxa ugu yar ee uu sameeyay maxay tahay quraankiisa buu ilaashaday wuu soo subciyay wuu jilciyay taasoo ka helay laakiin waa nasiib xagga kale ee jaa'isadii aynu bixinaynay iyo hawlaheeni kale waa sidoodii alleele hadii laga tagi waayo ardayga ugu sareeya xajka ayaynu geyn jirnay kharashkiisa xajka ku tagbayno oran jirnay maadaama sanadkan xajkii aan la qiyaasi karin in la tagi karay in kale halka waanu yara furnay oo waxaanu nidhi intii baa la bixinaya xajka loogu tala galay iyo $40,000 waa la bixinaya laakiin ardaygaasi isaga ayaa iyo waalidkiisu siday u isticmaalayaan iyaga u taala maadaama hadii xaj u soo baxa haday ku tagaan waa xor hadii ay wax weeyaan wax kale u isticmaalaanna waa xor maadaama xaaladaha caalamku iska xidhan yahay ilaa hadda in badan oo kamid ah ama gabi ahaanba ugu horeyn waxaan culimada lajnada ardayda mas'uuliyiinta kale ee ka socda dahabshiil dhammaantood ugu tahniyadeynaya gabagabada la soo gabagabeeyay tartankeenii qur-aanka ee caadiga inoo ahaa ee 30 sanadood oo dhow ka socday dalkeena Soomaaliland oo moodayso inay tahay meelaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku dhowray dadkan iyo ummadan ku nool dalkan Soomaaliland inaynu ujeedada kale leenahay tartankan runtii waxa aad u balbalaariyay Sheekh Ismaaciil Deeg oo tilmaamay da'yarta sharafta leh Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waafajiyay kitaabkiisa kariimka inay laabta ku hayaan iyo waalidkoodaba ujeedada laga leeyahay inay tahay kow in uba wanaagsan oo saalixiin inoo soo baxaan in quraanka macaankiisa si kale loogu tuso oo hadiyado iyo tartan loo sameeyo ay dhammaantoodba ku farxaan taariikhdoodana u gasha inta guuleysatay iyo inta kale aan guuleysanin ee isku daydayba oo caado inoo ahayd inay tartanada dambe ka qayb galaan waxaa kusoo koobi lahaa kusoo gabagabayn lahaa ciddii guuleysateen ilaahay nasiib u siiyey ee tartanka guuleystayna hanii'an lakum baan siin leenahay waanu ducaynaynaa ciddii iyadu aan guusha wada gaadhin laakiinse waa lahood ka dheereeyeyna waxaan leenahay soo dadaala fursado badan baa heli doontaan oo kan ka wanaagsan haddii aan la yidhaahdo waxaanan leeyahay guddidii taxkiimka iyo culimmadii qabanqaabadaba ilaahay idinka abaaliyo camalka weyn ee ilaahay dartii u qabateen kitaabkiisa kor u qaadaysaan ee kitaabkiisa dadka qalbigooda ku beereysaan gaaraan yar ku beereysaan in ilaahay idinka abaaliyo waaya su'aasha aan doonayo bal inaad wada weydiisaan talow sanadkan yaa hogaamiyaha tartanka quraanka noqonaya gobolkee weeye talow waa ardaygee talow su'aasha waa su'aal is wada weydiinayo waxaan jecelahay qof walba waxba kugu jira ardayduna way wada dadaashay darajadooda markaad aragtana dirq baa lagu kala saaray marka dhammaantood way guuleysteen laakiin dhibcay ku kala qaadeen inanka مثلا u sareeya
imika aan ku dhawaaqi doonaa iyo inanka labaad midna wuxuu keenay 8.8 midna wuxuu keenay 8.6 farqiga u dhaxeeya waa idinka arkaya marka waa rag wada dadaalay laakiin sadde marka la tartamo waa in la kala saara intii la dadaali karay cadaaladana ilaahay baa bayna farayba saacad wasiir waxaan jecelahay inaan ku dhawaaqo ardaygii iyo gobolkii sanadkan kaalinta koowaad galay waa gobolka Sool waa Laascaanood waa Cabdilghani Axmed Ibraahim haddaan idin sheegana waa ardaygii ugu horeeyay quraanka inoo akhriyay soo dhawow ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أرضيقاسي وحو قادنا يا أرضيقاسي $4,000 مصحفكي ساعدي شنددي إيه شهادتي الله كو بركة يا ذر داعي قارئة أو مقرئة الله كاردقو أرضيق الله بعض شان أرضي بينو كيرينينا وسهيب كيسة عبد الله أمرو دي جيح كسعودة isaguna waa ardaygii labaad ee quraanka akhriyay markii dhaweed aan idin tusnay waxa uu qaadan doonaa $1,500 inta kalena waa la mid soo dhawow haye culimada salaam ma sha Allah tabarakallah Allah ku barakeeyadeer dalka dadka diinta iyo naftaadaba kii anfaca iyo waalidka Allah ka dhigo ma sha Allah tabarakallah kaalinta saddexaad waxa galay عبد الله محمد حسين أو يسوقنا مرودي جيحة عبد الله محمد حسين ومرودي جيحة وياهي وحو قادنا يا $1 مصحف كي وحو قادنا يا شهادة دي وحو قادنا يا ساعد دي يشندد دي الله كبرك يا در كالنت أفراد وحا يتري كالنتني وحا ليداي إنكي حاجة بريقة كي يميد الصول وحو بهاي قرمد بو بهاي حاجة بريقة تقدير بس هو بودي برعو محمد موسى عثمان أيها كالنت أفراد قالي وتقديره تبارك الله لح بقوله $1 انت كلنا والله مد وصاعدي وشنددي ومصحف كي وكوده الرئيه يشهادتي الله كبرك يا در كالنت الشناد وقبل كمرودي شيح عبد الغني نور إسماعيل عبد الغني نور إسماعيل ومرودي شيحة وشن بقوله $1 انت كلنا والله ومصحفكي وشهادتي وصاعدي الله كبرك يا دير جزاكم الله خيرا هي شنية طبنك جزء وحا أين بلا بينا وحا كالنت كواد قالي سلمان خضر عبد الله أمرو دي جيحة أيا كالنت كواد قالي وحا قادنا يا $5 انت كالنا ينمدي بلمدي هاي أين هرأو سو شاقناي أدير الله كبرك إيو دلك دادك دين الدنيا دا نفت والدك انت كي أنفع الله كاردقون كالنت اللباد وحا قالي عبد الله ناصر علي وهرقيساء مرودي جيحة أيا قالي isaguna intii lag buu qaadanayaa marka lacagta laga jaro $400 kaalinta saddexaad waxa galay Cabdilxafiid Yuusuf Maxamed waa Hargeysa isaguna waxa uu qaadanayaa $300 iyo inta kale ay walaaladii qaateen halka Hargeysa 15 juz markaan saddexda arday sheegay waxyaaba cajiibka abaan idin sheegaya ee la yaab kale ee aanu kala kulannay 4 macallin ayaa imtixaanka ka qaadayay 4 macallin ee ka qaadayay ama 4 garsoore mid Hargeysu ahaa quraanku u soo qabanayay midna wuxuu ahaa awdal boorama midna wuxuu ahaa togdheer burco midna wuxuu ahaa lascaanood wasoola saddexda macallin ee go'aanka soo saarayay saddexda gobol ee kala ahaa macallinkan isagu weydiinayay Hargeysuha saddexda macallin baa soo saaray ardaydan markaas in Hargeysa saddexdaba uu ka gashay halka maxaad ka fahmaysaan cadaalad in la xukumayo
ardayga wanka galay laascaanood macallinkoodu kumuu jirin qolada soddonka ah yaa soo saaray waxa soo saaray macallimiintii kale gobolada kale ayaa isagana soo saaray halkaasi waxaa ka muuqanaysa cadaaladda rasmiga ee ay ku dadaalayaan guddida iyo macallimiintu allah ha idin barakeeyo